biyuhu waa mudanaha cabitaanka. ilaahna waxa uu qur'aankiisa ku sheegay in biyuhu ay wax kasta nolol u yihiin. si kooban waxaa loo dhihi karaa biyuhu waa maadada nolosha iyo mudanaha cabitaanka. jirka bini'aadamka waxa uu ka kooban yahay nisbo aad u sarreysa oo biyo ah. culimada sayniska ku takhasustayna waxa ay ku qiyaasaan 17% in jirka bini'aadamku uu biyo yahay, 29% kalena ay isku yihiin dhiig, lafo, seedo iyo hilbo. waxaa kaloo la sheegaa in ka badan 80% ay maskaxda bini'aadamka biyo tahay. tan iyo intii uu insaanku yimi koonkan waxa uu dhexbartanka uga jiray biyo. sidaas daraaddeed waxaa halkaasi ka cad muhiimadda ay biyuhu u leeyihiin jiritaanka bini'aadamka. waxaa la qiyaasaa in qofka bini'aadamka ah uu maalin kasta cabo, ku neefsado oo uu ku dhaqdhaqaaqo inta u dhaxaysa 2 ilaa 5 litir oo biyo ah. waxay kaloo saynisyahanadu sheegaan in wax ka badan 4 maalmood uusan qofku noolaan karin biyo la'aantood. waxaa aad loo ammaanay in qofka marka uu aroortii hore hurdada ka soo tooso uu ugu yaraan koob biyo ah cabo. waxaa la tilmaamay in tallaabadaasi ay ka qayb qaadanayso shaqo gelinta iyo baraarujinta mindhicirada caloosha oo muddo saacado badan intii uu qofku hurdayay howlgab ahaa. si mindhiciradu ay caajiska uga baxaan waxaa habboon in biyo la cabo. muhiimadda ay biyuhu u leeyihiin jirka bini'aadamka waxaa lagu soo koobaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin: biyuhu waxa ay jirka u kala qaybiyaan cunnada uu qofku quutay oo ay si saami ah u kala gaarsiiyaan dhammaan xubnaha jirka. waxay sahlaan hawsha dheefshiidka, nuugista iyo qashin saarka jirka. waxay ilaaliyaan heerka cadaadiska ee gudaha iyo bannaanka unugyada jirka ku dhex jira. waxay fududeeyaan isku dheelitirka shaqada gudaha jirka ka dhex dhacda ilbiriqsi kasta. waxay isku dheelitiraan heerkulka jirka. sidoo kale waxa ay biyuhu jirka ku dhowraan heerkulkiisa caadiga ah ayaga oo ka ilaaliya in xaaladooda dabiiciga ahayd ay ka gudbaan. waxaa lagu tiriyaa biyuhu in ay cunsur muhiim ah u yihiin dhisidda unugyo cusub oo jirka ah iyo in ay ka qayb qaataan dhaqso u bogsiinta xubinta jirka ee dhaawacantay. hal bil oo aad joogtayso in aad cabto 2 ilaa 5 litir oo biyo ah. dhakhaatiirtu waxa ay tilmaamayaan in la hubo in quruxdaadu wax weyn kusoo kordhi doono, caafimaad ka badan midka aad iminka dareemaysana aad heli doonto insha Allah. si aad u hesho caafimaad iyo muuqaal qurxoon, badso biyo cabidda. aadna uga taxadar in biyaha aad cabayso ay yihiin kuwo nadiif ah.